السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإسلام يا دمان والله سوماليد هل كان يقدر يا مال والبا وشوكتان يسير البدي مغلسان به ويسوع سلام يا عندنا يا بل إن أن هل كان مانتا أنكو فرنقيو عذرنتي حساسية إسلام مركزنا يمادي وقت حساسية أو لقد ضبي رئيس الوزراء كوين كوري سوماليا مهدي محمد جوليد ومركز الله يقانو خضر سودا وده مال والبا وشوكتان يسير والبا ومركز مغلسان به haddii aan ka bilaabo arrinta mahdi ayaa cod sira uu leeyahay markaasi runtii la sii daayay ama la ligareeyay oo gacanta laga bixiyay codkaas oo loogu talagalay inuu markaasi ahaado cod bareefada codkaasi wuxuu ahaa 32 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal oo ka iimaanaya ama matalaya gobolada waqooyi ama beesha dhexe ee waqooyi ayuu mahdi markaa u waramayay qaab xog ogaalnimo ah ayuu ugu waramayay wuxuu ka waramayay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay aqoonsiga la siiyay SSC xaaladda dagaalka Somaliland iyo meesha la yiraahdo SSC iyo arrimo nooca ayuu ka hadlayay mahdi ragga u waramayay waxay ahaayeen niman runtii ay ka muuqato xog la'aan ku aadan waxa meesha ka socda sababtay ugu yeerteen maadaama uu yahay asagu xog ogaal ah xoga badan haya waxay weydiinayeen bal waxa meesha ka socda wuxuuna meesha ku sii daayay runtii xog aad u weyn isla markaasna taageeraysa tuunkii maalmihii la soo dhaafay aan qabay ahaa Xasan iyo Muuse Ismaaciil waa isku koox qorshayaal baa meeshan laga wataa maxaabiis baa la doonayaa in la sii daayo arrimaha waxaad moodaa wixii aan ka hadlayay specifically inuu ka hadlay bad moodaa yani sacaalo ogeyn bad moodaa erayaan isticmaalaya xataa erayo la mid ah ayuu isticmaalaya haddii aan mahdi aan idinku laabto dadka qayb baan aqoon xasuusanin laga yaabo siyaasadda in gadaal uga soo biireen waqtiga SSC ay bilaabatay mahdi maxamed guuleed wuxuu ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya waqtigii Xasan Cali Khayre iyo ninkii la oran jiray Roble ama waqtigii Farmaajo oo dhan ba intii Farmaajo uu joogay oo dhan wuxuu ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeen ninkaanu waa ninkii hayay xildhibaanadii reer waqooyiga qaybtooda ugu badan ninkii soo xulayay weeye waana nin gadaal laga ogaaday inuu markaasi ahaa nin xiriir hoose la leh Muuse Biixi Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka mid ahaa raggii loo qabay inay Farmaajo ololeynayaan laakiin noqday nin u ololeynaya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna xiriir dhow la leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdaasi dam mujdiid ayuu xiriir dhow la leeyahay maadaama uu campaign kala shaqeeyay waa nin noocaas markaa oo joker ah aragtida laga haystay aragti aan ahayna la soo baxay dadkuna ay dib ka barteen inta waa halka waa introduction ku aadan ninkaasi arinta ugu horeysa mahdi uu ka hadlay waxay ahayd xiriirka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Biixi ama Somaliland kala dhaxeeya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ka hadlay wuxuu yiri ninkaanu madaxweynaha wiye ah ama Soomaalida kale ta ah oo Somaliland Xasan Sheekh Maxamuud uga fiican runtii lama helay ayuu yiri wuxuu intaas ku daray Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu Somaliland la garab istaagay ayuu yiri tolnimo iyo gacan diblomaasiyadeed iyo taageero ayuu yiri ma garanayo marka taageeraha mid aqaala oo mid khubba ma garanayo ma uusan sheegin taageero nooc ay tahay wixii hadii uusan Xasan Sheekh Maxamuud ahaan lahayn wixii ka dhacay la sacaanad ama xaaladii meesha ka taagnayd way oga sii dari lahayd buu yiri meesha hadda ay taagan tahay waa arrin runtii la yaab leh bal inta yarta marka hore oo xiriirka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Somaliland uu kaga hadlayo bal hamar ila dhageysta marka hore si oo uu ka hadlayna wuxuu mahdi uu sheegay inuu xog aruurin uu sameeyay oo dad xog haya oo waaweyn uu la hadlay kastuusan magac dhabinin wuxuu sheegay in qoraalkii la soo saaray dawladdu ay soo saartay ay markaasi uu arkay waxaan waxba ahayn uu arkay ama waxaysan waxba ka muuqanin xataa dad garanaya sharciyada uu markaasi la kaashaday aysan waxba macna aysan sameynaynin ayuu sheegay wuxuu intaas raacsiiyay afar faatixo ma aysan ahayn wax dhaafsiisan duco oo kale ama iska taga oo kale ma aysan ahayn buu yiri wax dhaafsiisan aqoonsi halka kuma uusan jirin ayuu ninkaas u yiri wuxuu intaas raacsiiyay wuxuu yiri waxa xaqiiqo ah in Muuse Biixi lagala tashaday buu yiri oo uu akhriyay oo la isla eegay nin kamid ah ragga xisbiga kulmiye waa xisbiga Muuse Biixi uu ka soo baxay wala uu ka tirsan yahay ragga ugu sareeyay mid kamid ah oo dood ka keenay baa jiray laakiin markii ugu dambeysay asaguna waa lagu qanciyay waa waraaqda soo baxday waa waraaq kulmiye la horgeeyay oo Muuse Biixi eegay oo lagu laabtay oo la isla fiiriyay oo lagu qancay oo raggii muranka ka keenay xataa lagu qanciyay ka bacdi baa la soo saaray buu halkaan yarkaan ila dhageysta wuxuu halka ka yiri muhiimadii go'aankaas ay u qaateen inay waraaqdaasi ogolaadaan
oo ay fiiriyaan oo go'aankaasi ay u qaateen Somaliland baan dabagal ku sameeyay ka bacdin waxaan soo ogaaday buu yiri sababtii go'aankaasi ay u qaateen inay tahay in maxaabiista dhowrka boqol ilaa 500 maxaabiista nimanka laga hayo in marka la soo sidaayay inay tahay iyo waliba abaabul cusub oo Somaliland ay wado oo dagaalna way ayuu yiri waxaan garan waayay marka qaybta hore ee maxaabiista waan fahmi karayaa mar badan baan ku celceliyay maxaabiista in ay tahay qorshaha ugu weyn ee meeshan ku jira laakiin sidee abaabul dagaal xiriir oo la yeelan kartaa waraaqdan ayaan isweydiiyay aragtidaydii waxay markaasi ii soo qabatay oo kaliya waxa weeye in waraaqdan lagu mashquulo damaashaadka hadda jira ka dhigasho laga helo markaasina ay nimankan jaaris u helaan inay dagaal abaabuli karayaan ayaan u maleeyaa bal qaybta yartaana markaa ila dhageysta qaybaha dambe ee waraaqdan wuxuu uga hadlayaa inuu doonayo in Soomaaliya midowdo iyo in mataqaana ay beesha Isxaaq ay ummadda Soomaaliyeed tiraahdo nacafiya oo ummadda ay hortagaan oo ummadda ay cafis ay weydiistaan yaa arrimahaas uga hadlaya inkastoo aysan arrimahaas arrimo xun ahayn waa arrimo wanaagsan sida aaminsan yahay inuu ku mahadsan qaybta dambe laakiin qaybtan hore ayaa waxay muujinaysaa munaafaqada Muqdisho taala iyo sida Xasan iyo Muuse iyo raggan ay connection uga dhaxeeyo oo aan marar badan ugu soo celceliyay intii uu maxaa la yiraahdaa firdhiye halkan uu joogay oo marar badan la aflagaadeynayay dadka qayb ka midna ay arkayeen baa in asoo kaliis wax arka oo lagu hayay maxaad u sharaysanaysaa waxaadan arag miimadu aragtaa maya dad badan baa aamusan oo waxaan arkaa waan doonaynin inay idin sheegaan munaafaqada xamarka la marar badan baan idin iri dhalinyarada iyo wiilasha ilaag ee siyaasadda ku cusub ee Sool iyo Sanaag yacan ka imaanaya ee markay xamar imaanayeen caalamada la yimaaday meesha munaafaqada taala munaafaqad ka xeel dheer mideed u maleynaysan ma inaan idinka caqli badanahay laakiin muddo badan baan waxaan dul taagnaa anigu aan mashquul ku ahaa wana sababta aan mar walba aan doonayo inaan oga digo in wax loo qariyo reer SSC waad ugu nici kartaa waad nigu caay kartaan laakiin waan wadayaa inaan ka soo saaro waxyaalaha ay qarinayaan kooxda Xasan Sheekh Maxamuud ee ku caan baxday dibindaabiyada iyo isdaalmarinta kala qaybinta ummadda qabyaaladda boobka suurtagal ma in laga aamuso dalka waxbaynu ka leenahay qadiyada SSC waa qadiyada ugu weyn ee Soomaaliyeed way midnimada ummadda ku jirta qadiyad reereed ma ah marar badan baa sheegnaa arrimaha hadda aan ka soo warramay ee Mahdi uu sheegay maani Mahdi bas ogeyn ma idinku iri suurtagal ma aha inaysan Muuse iyo aysan Ismaaciil aysan ogeyn shirka meesha ka dhacay xamar oo aysan tala ku lahayn suurtagal ma aha